الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى من صار على نهجه واهتدى بهديه ودينه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالات والبدع والفتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون عباد الله، إلهي با سبحانه وتعالى وناقي خير اسكاله. الله سبحانه وتعالى inugu soo waafajiyey kulankan oo kale inaynu ka soo wada qayb galno aynu ugu magac darnay isbarasho iyo tacaaruf iyo wixii su'aala ah إن شاء الله تعالى أينو دينة إلهي تبارك وتعالى كمذا أينو كجهل بحينو إن شاء الله تعالى إنو سكوي الدينو أينو كان جوابنو بإذن الله تبارك وتعالى. ددوينها وحنولانها سود وادا إن شاء الله تعالى وجزيتم خيرا. إلهي سبحانه وتعالى هيدك أبا المريح. نعم بضنا كل دروس تأم بين صاقلنا وإنو كبحنا مركا إن شاء الله تعالى ما أنت وحين دونيني أرضيدا إن شاء الله تعالى إنا وحوي حالكوغا يا أرنكوغا للا صعدو بإذن الله تعالى هدو إلهي راهضو مركا وحنو لنا هاي سودا وادا إن شاء الله تعالى. إلهي با سبحانه وتعالى مرول با خير يوناق إسكاله الله صيدا حقا وناق سن إنو وفتشيي كل مدن وكلنا إلهي سبحانه وتعالى وحين كبريينا إنه إلهي سبحانه وتعالى وينوى فتشيو بإذن الله تعالى. مركا ولا لها كحرا بيتك دينتينو ونستيحو وحنذي كلنا يسود وادا إن شاء الله تعالى. وحا إنو يلندونا أو كره qorshe in sha allahu tacaala aynu duruusteeni aynu ku bilaabayno waxyaalo badan ayaynu isku sheegi doonaa abase aynu isku tilmaami doonaa in sha allahu tacaala wixii afkaar ah wixii duruusa sharaxu siduu idila muuqdo in sha allahu tacaala تليفونكا ميشا كقران خاصة إيمديسة
iyo whatsappkiisa ayaad ka soo hadli kartaan biidni illaahi tacaala. fadhigan iyo majliskan waxaynu ugu talageli doonaa muddo saacada inuu inoo socdo, waynu soo afmeeri doonaa in sha allahu tacaala. wajazaakum allahu khayra wa axsana allahu ilaykum. ilaahayna waxaanu ka baryaynaa walaalaha qolka ku jira inuu ilaahayna barakeeyo rabbi subxaanahu wa tacaala. waayahay, su-aasha koobaad waxay tahay, maanta ma idinkaa su-aalay weydiin mise aniga idi weydiiya su-aalaha? cabdi cumar, beijka maad ku xidhan tahay? maasha allah. waayahay, adiguna laba su-aalood baad i weydiin doonta, aniguna waxaan jecel inaan su-aal ku weydiiyo. insha allah. horta maanta waxaanu furnay barnaamij aan ugu magac darnay isbarasho iyo tacaaruf. badana dee anigu macalin cabdiraxmaan macalimiinta qolkan ka tirsanahay, dhowaan baan walaalaha kusoo biiray, weli dee waan iska cusubahay. maxay ahayd kadibna badana duruusta intaanu dhigno un baanu ka baxnaa. ka waran qolka maxaad ka faa-iday intaa aad ku xidhnayd? duruus maxaad la socotaa? bal arrintan noo yaro falanqeya insha allahu tacaala, oo aftax khayr fiicanna noo noqo cabdi cumar. sheekh wallahi barnaamijka horta waxyaaba badan oo diiniga aan ka faa'iiday. nin dhalinyaraan waan ahay oo sida diinta aad imanka ku cusub tahay, markaa waxyaaba badan barnaamijkuna aad u qanciyey. su-aalo badan waa layga jahil saaray. insha allahu khayr. iminka intii dhowrka sana ilaa sanadkii ugu dambeeyey baan ku xidhnaa, bilihii ugu dambeeyey baan ku xidhnaa, marka alxamdulilah. maasha allah, maasha allah, maasha allah, alxamdulilah. horta ducada ugu badan maanta waxaa yeelanaya walaalihii beijka furay, walaalihii beijka furay ee agaasimay ee arrintan soo qabanqaabiyey. maasha allah, tabaaraka allah. qolkeenan beijkan safxadan culamo badan baa ku xidhan, dadweyne fara badan baa ku xidhan. maasha allah, tabaaraka allah. runtii dee aniga laftaydu aad baan u hiya kacay markaan ogaado dee inamo dhalinyaro ah oo barnaamijka ku xidhan, oo duruusta dhagaysanaya, oo su-aalaha laga jahli saariyo. taasi runtii waxay mudan tahay anaguna dadaalka inaanu sii laba jibaarna insha allah. alxamdulilah. wallahi markaan arko sheekh, alxamdulilah, markaan arko waan farxaa. marka labaadna waxaan sii codsadaa niyadeyda waa inaan dad badan oo aan markaa facebookayga yani ka daawan kara inaan sii sheergareeyo. marka alxamdulilah, shukri aad iyo aad baan ugu shukrinaqaa, ugu farxaa. wixii su-aalaan ka fahmay iga jahil saaray diinta ku saabsanna waan jazaaka allah khayr. aad iyo aad baan horta kuugu ducaynaya cabdi cumarow. jacalaka allahu mubaarakan. ilaahay ha ku ilaaliyo, ilaahay ha ku dhowro, ilaahay subxaanahu wa tacaalana ha kaa yeelo mid mubaarak ah. runtii dhalinyarada iyo da-yartana aad baanu u jecelnahay. waa xooga waxa weeyaan dalka, waa xooga diinta. waxaan idin leeyahay yani waxa weeyaan soo barbaara oo maasha allah, tabaaraka allah, wajuziitum khayra. waayo su-aashaadu maxay tahay insha allah? wadaadadu inta badan waxaan arkay amaan inkastoo laga jawaaban weydiin markaas la tukado salaada cishaaye ee faralka. marka masala laga baxo salaada 4 ragcadood ayaa laga dhamaysiyaa. dadka qaarna waa dhex kunay hadda laba tukato midna waa tukan kartaa, 4na waa ka dhamaysin kartaa. waayo waan gartay. marka waxaad doonaysaa inaad ogaatid salaada cishaaye maxaa laga dambaysiinaya? imisa ragcadood ma laba tukan kartaa mise 3 ka dhamaysin kartaa mise 4 baad ka dhamaysin kartaa? waan ku fahmay. su-aasha labaadna waxa weeye beri inta badan beri baa meel deganaa, markaa jihadaanan garanayn. adigu ilaa dhowr bood baan ku tukanayay, jimeel aan u malaynayo oo jihadiya aan ku qiyaasay salaadayda. sheekh wixii insha allah su-aashayda wadna ku saabsantay. waaye alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. nacam, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi alamiin wacalaa man saara calaa nahjihi wahtadaa bihadyi wa diini ilaa yowm iddiin. walaalaha horta mar horeba waan u sheegayey
su-aalaha waxaynu kusoo talagelaynaa wixii diinteena inagu soo laalaabta aynu ugu baahi badan nahay maxay ahayd maca dadweynaha kalena dhegaysanayaan ku baraarujinaya runtiina aad waxaanu u jecelnahay dhegahaygu inay u maqlaan masaa-isha tawxiidka masaa-isha shirkiga su-aalay laga falanqeynayo masaa-isha salaada masaa-isha weysada masaa-isha meedhashadii sharciga ahayd ee janaabo laga meedhanayay waxyaalaha nolosheena in fara badan kusoo noqnoqonaya inayn dadka waxa weeyaan aynu ka jahli saarno aqoon intuu ilaahay inaga baray rabbi tabaaraka watacaala cabdi cumar horta marka koobaad aad baad u mahadsan tahay sida qiimaha iyo qaayaha leh ee runtii aada uga soo qeyb qaadatay barnaamijkan isbarashada iyo tacaarufka khaasatan anigoo macalin cabdiraxmaana qolka waxa weeye bishii rabadaan sanadkii hore marka laga soo bilaabo rabadaan dhexdeed ayaan kusoo biiray waxa weeye maasha allah tabaaraka allah badana dadka commonka iyo badana waan la socdaa waxaa laygu idhaahda dee waxa weeye badana waad soo gasha waad ka baxda barnaamijkana inaan caqido oo insha allahu tacaala dee kolba xaaladi xaggay marayso inaanu dee waxa weeyaan aynu wax ka tilmaano iyada lafteedu horta meesha waa ay ku jirtaa arrinta waxaa iisoo raaca labadaadan su-aalood cabdi cumar wuxuu ina weydiiyey walaalayaal su-aasha koobaad salaada cishaaye imisaa ka dambaysa xadiidka saxiix imaam muslim lagu soo wariyey min xadiidi umu xabiiba nabigu sala allahu calayh waaalihi wasalam wuxuu tilmaamay qofka 12 ragcadood tukada waa sunan rawaatib sunnadaha salaada ayay ka horeeyaan abase ay ka dambeeyaan buniya lahu beytan fi ljanna guri baa jannada looga dhisa 12kaasi ta salaada cishaay uu walaalku inaga weydiiyey dee waxay noqonaysaa salaada cishaay 2 ragcadood unbaa ka dambeeya 2 ragcadood salaada cishaay waxba kama horeeyaan ilaa allahuma inuu qofku dee sunno iska madax banaanoo uu iska kororsanayo inuu la yimaado laakiin qofku maxay ahayd 2 ragcadood unbaa salaada cishaay ka dambeeya dadka qaarkood aad aragtay inay 4 inay tukadaan ama 8 inay tukadaan badana witirka ayay kusoo gabagabeeyaan oo rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam kaana yuutir witriguna wayna tiro kala dhiman lagu soo gabagabeeyo salaada aakhir waxa weeyaan witirku wuxuu ugu fadli badan yahay habeenka qaybihiisa dambe ayuu ugu fadli badan yahay sidaa aawadeed dadka badanaad aragtay 4 iyo 5 ka daba tukanaya salaatuleyl ayay doonayaan inay sii yara qadimaan waayo qofkii ka baqanayay inuu seexdo waxa la yidhi uu rasuulku inoo tilmaamay calayhi salaatu wassalaam intaanu seexan ha witriyaysto laakiin sunankii raatibada ahayd ee xadiidka umu xabiiba ku timi ee 12 ragcadood la tukanayay waxay tahay salaada cishaay waxaa ka dambeeya waa 2 ragcadood weeye taasi horta waa mas'alada kale meel baad deganayd jiha khaldanna waad u tukanaysay markaa hadduu qofku gabaalow ka ogaado muxuu samaynayaa arrintaa waxaa ku soo arooray xadiidu jaabir rasuulku markuu u diray 3 saxaabi ayaa fi sariya waa ciidan wax soo sahamiya kadibna waxa dhacday inuu 3doodii inay kacbada meel allaaliya meelay ka xigto inay halmaameen mid waliba meel kacbadii aan ahayn buu u tukaday aroortii dambe markay waa bariisteen waaba 3doodii meel qibladii aan ahayn bay u tukadeen oo jihadii afraad ayaa qiblada noqotay kadibna rasuulka markay u yimaadeen waayo saxaabadu su-aalaha waxay ugu noqon jireen rasuulka
صلوات ربي وسلامه عليه النبي وحو كيري قد أجزأت صلاتكم صلاة دين ويدين كأنصحدي أبس ويدين كقدي مركا قفكو هدود دالي ميل كعبدان هينا وأتو كدي صلاته صحيحة صلاة دي سواحي تهيمت صحة والعلم عند الله إن شاء الله عبدي آد بانكو سلامينا آدنا ونكو سدوينينا إن شاء الله جزاك الله خير شكرا لك إن شاء الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واي مقع أورتا مقعاقا يا حقد كسو هادليسي. waxaan ka soo hadlayaa wadanka Sweden magacayga waxa la yiraahdaa Nimco. واي هي نمعو. Horta marka hore waan idin ducaynayaa ma sha Allah sida page-ka aad maxay hayday uga fidinaysaan diinta uga faa'iideynaysan dhalinyarta ma sha Allah. Sheekh waxaan rabay su'aasheeda hadaan hore u sii galo. waxaan rabay haddii matalan lamaanaha isqaba ay isfuraan oo ay kala tagaan oo xaasku waliba iyadu dalbato furiinka ma celinaysaa meherkeedii iyada ay xaq u lahayd ama dahab ha ahaado ama lacag ha ahaato midkay doonto نعم خلعي markay mas'aladu khulci bay noqonaysaa khulcigana waxa la yiraahdaa waa nacu markuu ka yimaado dhinaca gabadha xadiidkii waqtigii nabi maxamedna way dhacday calayhi salaatu wassalaam saxaabi bay saxaabiyadii nacday kadibna rasuulkii gabadhii wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wassalaam ruddii calayhi xadiiqatahu beertiisii uu meherka uu kaaga dhigayna u celi markaa meherka way celinaysaa watay soomaalideenuna yidhaahdaan dee heblaayo waraaqdeedii bay iibsatay dee waxa weeyaan waa inuu jiro ciwad waxa weeyaan walcilmu cinda allah insha allah ما شاء الله وافهم يا شيخ آدي أدبر ما صنت واي جزاكم الله خير ان شاء الله السلام عليكم عليكم السلام واي dadka waynu kala cadaalad sameynayna mar whatsapp kaynu ka qabanayna mar iimada labo ayaa loo kala qabanaya insha Allah ta'ala السلام عليكم. هلو نعم نعم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعاقا يحقد كسو هاد ليسيد إن شاء الله. waxaan kasoo hadlayaa dalka Norway waxaan rabaa su'aal magacayga waxa la yiraahdaa Farxiya waayahay Fadxiya Norway bay kasoo hadlaysaa be maanta dee su'aalaha waa la isweydaarsanaya ma beejkaad ku xidhnayd walaalo Fadxiya abejka ila garaysan saas darteed ma hadda ku arkay ma fahant صح وان فهمي بيجك انت ان لاق وقتي انت قاريات كو حدنيد والله الا لو كنت 13 ما شاء الله ما شاء الله محد كفائدي بيجك ما كتب ما قادتي دروستا كبخدا ما دلا سocota والله الحمد لله waxyaabo badan oo ducooyinkii waxyaabaha la soo dhigay fiidiyada inta badan aniga aan ka faa'iideystay wax duruuso si toos ah lama socdo laakiin se يعني الدعوين بدل ما كفائدة رنتي خير الله سي الشيوخ ده أو كنت عيس إلى يوم هذا
ما شاء الله ما شاء الله وليبنا فتحية بشارنا ونقودنا إن شاء الله تعالى وحلقة بلابي دون بيجكا دعوين إن شاء الله ستة صلي فوق بحيسا أو كتابك حسن المسلم كلاقا ديجي دونه إن شاء الله تعالى ددوينها يا فتحية با أرنتانا وانو أغيسينينا إن شاء الله ما شاء الله شكرا شيخ إن شاء الله إلهي خير هديث إن شاء الله وأرجو أن كقيب قلدون هدي إله رأيك إن شاء الله سأشهد شيخ سؤال بنسوق قري مركا وحكلا دي ويدين لها يا وحكلا ما يكسع سأشهد الشيخ وحن كشقيا ميل meeshaas waxa weey waa meel hole ummadu ay isugu timaado oo waxyaabaha maaragtay kulamada ay ku qabsadaan ma fahamtay waaye markaas inta badan wax nadiif ay ahayd laakiin maalin dhowto waxaan ku arkay waxyaabo khamri waxay hadda wixii diimahoodii markay ku jireen marka qaab xaflad lagu qabto marka sabtii dhowto waxaan ku arkay khamri in lagu cabo wax khamri ila eeg يعني أنا خبر قبل توصل ما أقاني أرتي سنة ما أقاني لكن وحنا يقين سنة خبر تمشي خبر اللي عبي. واي. مركز وان كسون نقضي رنتي وأرجع حي يعني ونفط ويسيو هنا نظيفية مش أون نقو ما فهمت. واي هي ولا على. مركا يعني محي الدين تقفت ماشي اللي عبي يعني هذا ما لا كشغل سكان نظيف هذه مركا قارئ دعوين أساس كلك أتكلم كلنتي ما دي شقدي ما قبنا مسوى الدين بتكون عيسى. وايهي ولا الأرض إلهي خيرها كسية وبارك الله فيك وأحسن الله إليك فتحية مسألة داسي العلم عند الله مسألة داسي وحوي إن شاء الله ما دام الدين أدون ويدي سي وحي أقون أن أقول لنا هيبانو كتشوابنا وحي كله ما دام الدين تادد نقو آمنتي وحويا وإنا نهبصنا وإنا نبارنا كحشون مينا إنا نراهنا الله أعلم إنت مسألة نسكو قادي لهين مركا إن شاء الله تعالى مسألة دادا وانقري دونا إن شاء الله تعالى ونصوباري دونا صفيعا ونكوسو قذبين دونا إن شاء الله تعالى أبا خاص كأيان كالا سو حريري دونا أبا أديقا إلا سو حريري دونا إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزاكم الله خير مسألة waxaan doonay walaalaha inaan u sheego oon u cadeeyo wixii aanan garanayn نحن لا نستحي أن نقول الله أعلم كما حشونينا وهي أرنتني والدين دينتنا دس وحويا وإلى تهي مقشو إما إن النص يدليل مسألة الله هي إما ينقفكم قاب صدو وإلى هذا الله أعلم جزاكم الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وايهي كفقو هداد مقال يمو قالك هاد نقل سعوتيد واي عودكو سي آنو أصول لبا نقون هاي إن شاء الله شيخ وايهي مقعا يحقد كسو هاد ليسي شيخ وحالي هذا كفاح الظاهر وحنكون هاي سعودة عربية ما شاء الله إفراح طاهر وايهي سعودي وايهي بيجكا إلا قرمت كحدني والله يا شيخ بالبيت كان ما شاء الله وحن كحرنها إلا هذا سنتك هذا بحي اللي بيكون سمعت الضبطة وانت كحرنا ورت عادي بانو كحرنا ما شاء الله محد كفائدي والله ما شاء الله الحمد لله ما انترسو من كوبي كرخير كأيو نعمة إلهي أن كفائدي كتب أن كفائدي تفسير أن كفائدي شيخ إبراهيم شيخ أحمد بحثور ما شاء الله شيخ عبد العزيز أوبلا شيخ عبد الرحمن هذا الله هذا ليو شيخ يحيى كل دمانتين بإلهي إذن حسبيه وما شاء ما شاء الله ما شاء الله مركز توصل قلب التلفون كو يقصو دعيا سيدة درتت كما بحو إلا أو إيغا دمات الليفكال ما شاء الله ما شاء الله مركا ما ميل بعد أفريستا أو متابعة ديسا بل إيورن والله أدبنا متابعة معايا لي تفسير كوكالي مركي أن مركز أن هذا أنا نجازه وان كفت كتاب كبان أوكا بحا معني سبان كقرتا أدبن أولا قيستا إلا أن محاس أنا كنا أنك دمين تو كدمين كتبتا شيخ أحمد بحتور بدن كودنا وان هايستا انتو هاد ميدو هاد أو بدن يهي انت كالنا وان كده قيستا ما شاء الله ما شاء الله مركا كتبتادي بعمل كوسارا يا مراجعتي إلى ما آخر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله المعلمين تاسودن هدي أن أوجر هاي مالن كون ما هاد علم آد وبلار الله يبي ما هاد سكنا طبعا وبيحلها
laakiin dib ma laha waxaa waaye mahad celinta qalbiga markaad uga duceyso way u tagtay maxmed may aniga kaa gaarsiinaya insha allah mashaa'ikhda iyo wadaadada oo dhan aniga kaa gaarsiinaya insha allah insha allah macalin aad iyo aad u mahadsan tahay sheekh waxaa doonaya hal su-aal in iga jaahil bixiso insha allah ilahay khayra ku siiyo waayahay waxaa jirta aayad qur'aan oo ku jirta suurat yuusuf taasoo oo qisada nebi yuusuf inuu markaas ilaahay inooga hadlayay ragga badankooda sheekha waxay u daliishadaan in uu dumarka ilaahay ku yiri waa dad aad iyo aad u dhagar badan waay saas ay tahay anigu ma aaminsanin hadalkaas inuu ilaahay yiri maal waxaa ila anigu aayadaas ma ahan aayad ilaahay uu dumarka muslimiinta ah asugu ku tilmaamay laakiin waxaa waaye qaadi markaas qisada uu ilaahay inooga hadlayay buu qaadigii baa yiri ilaahay yiri ninka sidaa طبعا حواي فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم وايهي marka waxaa sheekho ilaahay khayr ku siiyo haddaan dambaban ilaahay ka cafiyo waxaan doonaa iga jaahil bixisad aayadaas ma ilaah baa yiri oo dumarka ayagu dumarka muslimiinta uu ku tilmaamay mase waaba sida aan u aaminsanaho qaadigii reer masar ayaa yiri hadalka waayahay alxamdu lilah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من صار على نهجه واهتدى بهديه ودينه إلى يوم الدين وسؤال عظيمة وسؤال آدفي عن وقول الله تبارك وتعالى قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم هذا الكن يايري علماء مفسرين تو آد بيسكوكو خلافا هل من قول الزوج مسوى قول الشاهد waxaan ka xasuustaa imaam alqurtubi waxa uu yidhi qaala hada min qowli shaahid waa hadalkii markhaatiga weeye calaa ayi xaal mufasiriinta qaarkoodna waxay idhahdeen hada min qowli zawj waa xikaayana ilaahay arrinkaa iyo qisadaa allana uu ka xikaayoonayo hase yeeshee arrintaana lama inkirin kaydka iyo dhagarta markaynu leenahay kayd oo dhinaca dhagarta ah yacni rasuulku axaadiis waxa uu tilmaamay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam inaa dumarku yacni iyaga oo iska jilicsan oo dumara haddana maan arag buu rasuulku yidhi cid uga tagsiin badanoo maskaxda la tegid badan ninka ragga ah ee xaasimka ah macnihii waa hadday dhagar iyo jab ay la maagaan yacni min hada albaab ina la yidhaahdo oo waayo ninka raggii wuxuu isku hubaa xaaskiisa ismana lahaa xaggan baa lagaaga soo dhici hadday doonayso gabadhi inay ninkeega wax yeesho si yaroo fudud bay wax u yeeli kartaa waayo cuntadiisa iyadaa u karinaysaa jiifkiisa iyadaa u hagaajinaysaa laakiin yacni min baabi alixtiqaar xaqiraad ina lagu idhaa yacni maakira yacni si caama haddaa loo hadlaayo kaydkoogu iyo dhagartoodu waa cadiim waa cidday jab ay la doonaan
laakiin ina la yidhaa yacni gabadh baa lagu aflagaadayn laysa hada min almucaasharati alxasana oo nin raggii maanta hadduu ku yidhaahdo kaydkaaga dhagartaada waqtiyada qaarna hadalku la taraari karo ilaa khiyaamo u gaadhsiin karaba hada mima laa yajuus laakiin yacni kayd marka la leeyahay sharqoolka iyo arrinka ay soo xidhaan iyo siduu ninka raggii uu iskugu hadleeyo ayaa laga hadlayaa hadalkani ma hadalkii ilaahay baa oo ilaahay baa sidan yidhi imaam alqurtubi wuxuu aba mufasiriintu waxay isku qabtaan hal huwa min qowli الزawj mise waa min qowli الshaahid culamada qaar sida imaamu qurtubi wuxuu tilmaamaa inuu yahay hadalkii shaahidka iyo markhaatiga marka waalcilmu cinda allah sheekh aad iyo aad umahadsantahay sheekh aad iyo aad umahadsantahay su-aasha wax qof iga jahil bixiya baan lahay adigan ilaahay ajir iyo xasano aan lasoo koobi karin adidig ugu duceymaayo aakhir ilaah kaa siiyo dhammaan culimada beejkan ka qaado kheyrka ka bixiyana dhammaantoodba ilaahay ka dhigo ahlu jannaha iyo deriskii xabiibullahi maxamed sala allahu alayhi wasalam jazaak allahu khayr waayahay السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عبد الرحمن تمام. ما شاء الله تبارك الله ومفاجأة أدوفي عن ما مرسل به. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء مرسل وحويا ماليش يد ولي تشوك تمرها. اي ورن dadweynuhu aad bay iga raali noqonayaan saaxiibkay baanu seelnayo xagan iga soo qabtay iska waran mursal sheekh Cabdiraxmaan aad iyo aad baan ku salaamayaa aad iyo aad baan kaaga qaaday runtii de aad baad igu kadisay oo de meel yaro dhown baad igaga soo baxday sheekhaygii saaxiibkay oo meelka aan arkay ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك ان شاء الله اي ورن سويس كمونك سند مرسل ما شاء الله مرسل وحويا وولال ولالهي وحويا كمدا ما شاء الله تبارك الله مدفر بدن 6 سنه كبدن صاحب وانو اهين laba jeer oo dalka Malaysia aan tagayna waanu isku aragnay meelna wax baan ku wada cunnay aad bay cishra iyo wanaag iyo khayr fara badan ay naga dhaxaysa maantana ma sha Allah de waa ka uu isoo qabtay oo anigoo live ku jira ayuu ila soo hadlay ma sha Allah mursal jazakallah khayr marka oo salaamaya ما شاء الله ما شاء الله ده ماشي صاحبك بعد كده حركتي ومركز تري كصوبير يا ان شاء الله جزاك الله خير ولال احسن الله اليك ما يرنتي بيجك خير بدن باك الصعده علماء بدن باك سوق الشاه ما شاء الله تبارك الله ان تكحدناتي دينا خيرك يا وناقه وارين ادو في عن ان شاء الله دمان أصحابتي حاجة شوكتين آدي قوة الصلاة ده ما شاء الله رنتي آدبان كوغو فرحين نعود كاغانا مقلا مرسل جزاك الله خير جزاك الله خير واي جزاك الله خير ما شاء الله تبارك الله وانت ميشا ولا سكو أركي ما شاء الله تبارك الله ساكنا وحا ميشا إيقا صوبحي تدقو يلي وعدي قاقان وكل قيسان جني مقالة هرقيسا إلا لبان كون يو لحدي إلا لبادي كون يو تضبادي
ayaa maantana xaggan su-aala iga soo weydiinayay. maasha allah tabaaraka allah, caalamka daafihiisii ayaa lagu kala baaday. soo dhawaada insha allahu tacaala. nacam, waayahay, maasha allah tabaaraka allah. aada waxaan u jecelnahay dadku inay diintooda fahmaan, ina khayrka lagu dadaalo, iimaanka ina la kobciyo oo la badiyo. dee maasha allah waxyaalo badan ba aad aynugu baahannahay. waayahay, assalaamu calaykum. waayahay, magacaaga iyo xaggaad ka soo hadlaysid insha allah. waayahay khaaskaad doonaysay, marka insha allah adigu waqti waxa ugu fiican ilaa haddaad waqti aad u haysa ilaa 6 saacadood kadib insha allah waad ila soo hadli kartaa insha allah. insha allah. waayahay, yaa kaloo soo hadli doona insha allah. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. magacaaga iyo xaggaad ka soo hadlaysid? sheekh magacaygu waa Caaisha Maxamed, waxaan ka soo hadlayaa Hindiya. waayahay, Caaisha Maxamed Hindiyay ka soo hadlaysaa. waayo Caaisha Maxamed beejka intee in leeg baad ku xidhnay? 2 sano, 2016 6 iyo 10 iyo 17 waa 2 sano weeyaan, waa muddo dheer runtii. maxaad ka faa'iiday? sanad maasha allah, 10 badan baan ka faa'iiday, kutub badan baan ka faa'iiday, maasha allah tabaaraka allah. ay imisa kitaabaad ka dhamaysay? had awal loo sanadkan 2017 ka tibaan ugu xirmay cumda iyo wax ka dhigtaa. hadda cumda sibtu salaad waa ka amarsan jiray, waa ka akhrisan, waa ka dhageysan jiray. cumdaha waa ka marsadaa. maasha allah, waxa ka marsadaa. hadda usuulu salaad baan oo dhamaaday. maasha insha allah wax noo bilaabanaya kitaab kale, tuhfatul atfal. maasha allah, maasha allah, maasha allah, maasha allah, maasha allah. siirado kale sheekh Cabdi Casiis waa ka dhageystaa. nacam, oo toos laakiin iyada uma xirnay. waqti dambe soo gashaa, markaan soo gaaro insha allah waan dhageystaa. صح. maasha allah, maasha allah. Caaisha, maxaad su-aal haysay Caaisha? sheekh sida kale waxaan rabay markuu salaada la tukanayo, qofka salaad tukanayo uu shaydaan baa waswaasiya. marka hadoo kale waan ilaaway, waxaan u maleeyay inaan atixiyaasaday iyo inaan atixiyaasan ragcada labaad. marka anoo hataan is yiraahdo marka ma taxiyaadkii dambaad ka tagtay? taxiyaadka dhexe. taxiyaadkii dhexaad ka tagtay. waayahay, aan ka istaagay, waan istaagay. waan gartay. ma soo noqon karaa markaad atixiyaasan karaa mise oo sii wadanaya salaad? may salaadaad sii wadanaysaa. culamadu xaggaa labay u kala qaybiyaan. adigoo weli hinqashadii ku sugan oo dhexda sii mariyo ruknigii taagnidana aad gaadhin, xaaladda waad soo noqonaysaa. hadhowna waxaad la imanaysaa sujuudu sahwi. intaad salaamo naqsan baad la imanaysaa, waayo dhinaashiyaa salaadaadii ku yimi. haddaad kacdidna waad dhamaystiranaysaa. inta aad salaamo naqsan ayaa 2 jeer aad sujuudaysaa, subxaana rabbiya alaclaa baad odhanaysaa, kadibna waad salaamo naqsanaysaa insha allah. insha allah, jazaak allah khayr. wa iyaak insha allah, jazaakum allah khayr insha allah. waayahay, yaa kale? maasha allah, beejka aad baa looga faa'iiday. maasha allah, waa barnaamij insha allah muddo walbana aynu yara dhexaysiin doono, aynu qaban doono. dadku aad bay u badan yihiin insha allah. السلام عليكم. ها مقعاه ما شاء الله. مقعيقا منطق آري
waayahay mandeeq mandeeq xageed ka soo hadlaysaa waxaan ka soo hadlayaa Masar. maasha allah masr waayahay beejka intee in leeg baad ku xidhnayd beejka intee leeg baad ku xidhnayd mandeeq nacam ha beejka intee leeg baad ku xidhnayd mandeeq maasha allah wallahi beeshka in badan ayaan la socdaa oo ku xidhnaa imisa sano ilaa maalinta abilowday wallahi sanada kuma xidhnayn sheekh sax dhawaan baad ku soo biirtay nacam waayo duruus maxaad ka qaadatay maxaad ku taxan tahay duruus maxaad la socotaa wallahi maasha allah wax badan ayaan ka fahmay wax badan ayaan la socdaa maasha allah ilaahayna inka badan inuu kusii garab qabto ayaan jecelahay maasha allah welibana kutubta ka baxaysa meesha ee laga marinayo waa inaad ku xidhnaatid insha allah insha allah haddii ilaahay igu talagalo naftaydu simo maasha allah sheekh yaxye soo dhawow insha allah jazita khayran waayahay su-aashaadu maxay tahay sheekh su-aasheedu waxay tahay beryahan oo dhan aan ka fikirayay wallahi inta aan wax badan diinta ka saabsan aan fahmay marka sheekh dad badan baa aan weydiiyey su-aashaa waxay ku jawaabeen waa ma jirto waa xaqan oo ma dhici karto sanadkaaga haddii sanadkayga ayaan xusi jiray marka waxaa yidhi maanta sanadkayga ayaan xusayaa waxaa la yidhi ma jirto waxaas maadaama music aan ku xusin haddana waan xusi karaa sanadkayga sanadka markaa ma sanadkii dhalashadaada sanadkii dhalashadaada dhalashadayda aniga dhalashadayda waayahay music ma samaysan aan u baahdo inaan bas kaagiyo waxa sharaab yar leela caabo marka waxaas waa khuraafad waxaas wax jiro ma abaligeeri waan gartay horta alxamdulilah nacam ma dhamaysatay masha allah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى من صار على نهجه واهتدى بهديه ودينه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتا ولا ليال جزاكم الله خيرا walaasha maandeeq iyo dadweynaha intooda kale aad baan idinku mahadnaqaynaa sida quruxda badan ee fiican ee barnaamijkan aada uga soo qeyb gasheen. su-aasha walaasha haddaan uga jawaabno sanad qofku muu dhigan kara sanadkii waxa weeyaan u dhashay aba sanad guradiisa yacni xaflad muu dhigan karaa, hase yeeshee arrintaasi islaamka wax shaqo ah may ku leedahay. horta qofka mu'minka ah waxa fiican inuu diintiisa inuu u noqdo mar walba. cimriga ilaahay baa ina siiyey, qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin. ilaahay rabb alcaalamiin baa khayrka oo dhan ina siiyey, rabbi tabaaraka wa tacaala. marka qofka muslimka ah mar walba wuxuu mudan yahay inuu diinta alleh inuu mar walba uu u noqdo, yada uu fahmo, uu kuna dadaalo. sidaa aawadeed qofka mu'minka ah waxa weeyaan arrinkaas waa arrin si waajibnimo ah looga doonayo. haddaba arrintan islaamku shaqa kuma laha. waxa weeyaan ciid miilaad ina la dhigto, sanad guro ina la dhigto, oo waxa weeyaan waqtigii uu qofku dhashay markii maalintaas ay kusoo beeganto inuu xaflada sameeyo, inuu waxyaalo la mida inuu sameeyaa diinta ilaahay shaqa kuma laha. ilaahayna qowl uu ilaahay meel ku tilmaamay ma aha. hadday maanta cidi dhalasho ay dhigan lahayd waxaa u mudnaan lahayd dhalashada nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam. bal hiya caadaatun waaridatun min qibali acdaa illah.
waa caado iyo dhaqamo laga soo waariday dadka ilaahay cadowgiisa ah rabbi tabaaraka wa tacaala. ilaahay isaga cimriga ku siiyey ilaahayna isaga nolosha inagu deeqay rabbi tabaaraka wa tacaala. marka waxyaalaha caynkaasi asal iyo raad kuma laha alla sharcigiisa iyo diintiisa insha allah. jawaabta oo koobani waa sida weeyaan walaalo. shukran sheekh, shukran. جزاك الله خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. عليكم السلام. وايه dadweynaha waxa bishaaradan u hayno waxa weeye باذن الله تعالى wala idin soo iclaamin doona inta toddobaadkana waa laga bilaabi doona ducooyin in sha Allah kitaabkii xisnul muslim kitaabkii xisnul muslimka ayaa la bilaabi doona. kitaabkaygii in sha Allah aan dhigi jiray sifatu salaana runtii wuu inooga kala go-ay marka in sha Allah kitaabkiina waynu soo celinaynaa in sha Allah. labada darsi waxay noqon doonaan laba darsi oo xiriir ah in sha Allah ta'ala. jadwalkana waa la idin soo siin doona intan toddobaadka dhexdiisa in sha Allah ta'ala. taana ku bishaaraysta. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعة وأم هاجرة. وهي أم هاجرة حاجات كسر لسه أم هاجرة. وحن كسر الله يا القاهرة. القاهرة وهي هي. إمي ساعة أياد بيجك كحد نايد. بيجك إلا مدة هذه دور بلاد سديد بلاد مالها ما شاء الله وبيجك وعنه وانا. ما شاء الله إلا تضرب بلاد سديد بلاد بتكحد نايد وهي هي وأعرف عنها. waayahay maxaad ka faa'iiday inta toddobada biloodaad ka xidhnayd maxaad ka faa'iiday beejka kol aniga waxa oo ashara kama qaato waan jeclaan lahaa laakiin sida u baxay asharada ana ashar kitaab 40 oo hadda bilowday laakiin si fiican uma fahmin fahfaahintisa asharkan sida la iskaga dhageysnaa waxyaabaha lama socdo bas waan jeclaan lahaa inaan la socdo oo information oo ziyaada aan helo hadii ilaahay yiraahdo waan raadin doonaa. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى. وسؤال محد سؤال شيخ سؤال وحا عن قضاء أو يعني نضح أيام محمد لي كلر ومركي حوغا شبهات أنا وان كما خلي لكن سمك جارنا يوم مضح أنا ما كوسده وان حجاسة ما شاء الله جيتكاكم مرانا ومضح قاوان قفت لنا ما أكو أنا عن أذيقي جاهين marka maxay liid ka xataa kala taas hadii ay ogoleen maxaan ka sameeyaa hadartaan. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى من صار على نهجه واهتدى بهديه ودينه إلى يوم الدين. ولا لي المسألة وحي كساب سنتهي مذبك كلركا مذوبيسدا aan ahayn dumarku madaxooga ay marinayaan culimadu shuruud bay arinta caynkaasi ay u dhigaan. shuruud ay u dhigaan waxa kamid ah inaanu qofka marsanaya gabadha ah inaanu darar iyo dhibaato inaanu ku keenin. waayo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la darara wala dirar yani waxa weeyaan isdhibisi ma jirto cid kalena dhibaato la gaarsiimayo. hadaa laga aamin noqdo waxyeelo dhinaca neerfaha madaxa hadaanay waxba gaarsiinahayn wa alla qasdiguna aanu ahayn qasd at-tashabbuh bil kafirat dumarka gaalada in la isku ekaysiyo قصدنا وياهي أن تتجمل المرأة لزوجها ليس فيها بأس وحدي بأرن تعصيم لها أي علماء تلمامين لكن وين شروط الله إيجو ويقار كود كيميكال إيا وحيالا لسكو دريوي قار كود تمها بيقوبيان إلى ما آخر ذلك مركا علماء وحليا دي
la xaqiijiyo inay qofka neerfihiisii dhib ay ku keenayso, maxay ahayd timihii inay daadinayso, darar iyo dhibaata ay uga soo hoyanayso, aba qasdigu yahay inaan lagu tashabuho dumarka kaafiraadka ah, arrintaasi ma banaana. hadduu qasdigu yahay sawjkoo lasku qurxinaayo, yacni waxa weeye arrintaasi waa laa ba's, wax dhibi kuma jirta insha allah. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وايح إن شاء الله تعالى مجلس كمانتا انت سانكو سو أرورين دونا إن شاء الله وحي نوبل لن نقونيسا هدو إلهي إلهضو إن شاء الله تعالى وقتي كلا أو هودا ينسكو سو قلي دونا إن شاء الله حيالا بضن ميشا والله نوغت المامي ما شاء الله برنامج كان حلقة سي يلان دونا أن نسي وضي دونا دادك سؤالها ينوغا جوابينا سيدا وكلا دادك نوين وريسانينا إن شاء الله تعالى حمدي كلنا هاي ولا ليال جزيتم خيرا دعادينا هنجا إلاوينا أنا قلنا وندين دعينينا دين تنها اللي قد داله صلاة هينو إلالينه أمرك إلهي هينو قاضنه إلهي رالي قلنتي سهل اللي قد داله مروا البوحي نسكو باقينا خير يوناك إنينو حنانه إن شاء الله دروس تاني صفة الصلاة دي بينو بلا بدونا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى هدو ربي إذمه بإذن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله دذالنا هلا موتيو إن شاء الله تعالى هبين كالصبت ذا إن شاء الله ويكين كان إن شاء الله وندين سوقلي دونا وندين سو إعلامين دونا وقت في عنا ونسوقلي دونا أو وقت دير aynu isla joogno in sha allahu tacaala aadna aynu u dadaalno walaalayaal gacmahana halas qabsado ma sha allah tabaaraka allah inagu ujeedadeen waxa weeye inaynu gaadhno rida allah dhammaan waynu doonaynaa sooma ilaahay inuu inaga raali noqdo ilaahay inuu ina jeclaado macraka weyn dagaal weyn baynu ku jirnaa مع الشيطان إلهي القرآن كم حكوت المامي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله وحيلي كو الضراد ضيه نفتودا ولتي هاتمي خيرك كم قونيي وناقنا كردي waxweeyaan hanuuninee oo hanuuninee wadooyinka iyaga ayaanu kusoo hanuuninaynaa wadada tawxiidka wadada salaada wadada alla ka cabsiga wama ila aakhiri dalik marka arintani maxay u baahan tahay عزيمة قوان قادشو وحوي لا ينال العلم براحة الجسد علمي قال لكم ما هلا إنه تشركوا إنه يسكنست ما دي قروا ما يسن ولا له سير كقار كود في طلب العلم وحن أركي أبص أن كدو الاستاجي علماء قار كود يقول صحراها مريا هرات كدلي قاري أو كاديدو دعبي ما أنت مركا للدوني إنه نيكو إنه فانه مركا الضل يحلقن يوحيالها قار كود بيواتوين صومري محوين هذا وارتن كاديدا نوسو عبني سوما الله مركا سلم ودقف خطره حتى بدد أي دين تكاديدو دو سعبي أو علمك أصبري إمام أحمد رحمه الله وقت يدا قاركود وحكا سقناتي صنياشا إنو كتاقي جري من أجل مذاكرة العلم علمك إنو مراجعة ديو مذاكرة ما أها علمك ولا ليال وان ديكتاي أو وان برتاي فرهان كقاضي
dadka qaarkood baa moodaa sheekhu hadduu caalim noqdo khalaas diinta inaan la eegin wixii dee xaggan waa qur'aan ilaahay la ashaddu tafallutan wuxuu ka baxsad badan yahay yacni hasha riman ayuu ka baxsad badan yahay hadda waa qur'aan bal ka waran arrinkii qur-aanka ka soo sokeeyeyna bal ka waran walaalayaal waktiga waa ina laga adkaado waa kan maxay ahayd caalamkii fitan baa ka socda fitnada bahalka aynu gacmaha ku haysano facebookana halaga badbaado intuu qofku farta sidaa uu leeyahay hadday fartaadaasi hadday cadaabka ku geyso ka waran sidaad u wadid meelo daran hadday kula gasho ka waran waa khatar soo maa albaabkii towbaduu furan yahay ilaahay usoo noqo التائب من الذنب كمن لا ذنب له قال الله تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قال الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فلاح فوز ليبان أي التوبة دينك حيران لكن نيكي الشيطان لا أورنا يوحو كوغورانيا نين قوياني بيا إسكاما دوره دنبيغا كسي چوكتي وما إلى آخر ذلك مركا فتنة الفيسبوك هلا اسكاقا إلاليو اسكا إلاليو واحد شير قرينيس انت تشير قرين كباراندك شير قرين تاسي هل تقودك إلى الجنة أم تقودك إلى النار ما جنادي كو هogaaminaysa mise naartay ku hogaaminaysa arinta waa inaad ka fiirsatid way juziitum khayra aad baan idinku ducaynaynaa soo dhawaadaan idinku leenahay ku xidhnaada dadaal muujiya yani ma sha Allah tabaaraka Allah inama almu'minuna ikhwa inna akramakum 'inda Allahi atqakum المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وإن والالتني مضى وإن الحجيو الحمد لله إلهي اسكو ديغان بو إنا قدقي مسلمين اسكو قبلة اسكو دقان عادات ما شاء الله صومالي ويس حكته ميلك الصي كنو ليهين فيجب علينا يا عباد الله إنينو إلهي اسكا بقانو سبحانه وتعالى إن شاء الله سيدان هورينا ندي كنت المامي بإذن الله كتاب كي صفة الصلاة يدعوين كي حسن المسلم ولبنا إن شاء الله وقت في عن أيان كيالي دونا أرن كان وينو كوضا تشان دونا ويكين كان وينو كتشانينا إن شاء الله تعالى سيداها لو أقادو هل دذالو وحويا سيروا إلى الأمام هرها الله صعده إلهي هلو حدنادو إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير دعواتكم إن شاء الله وتبوأتم من الجنة منزلة حياكم بياكم وجعل ربي الجنة مثواي ومثواكم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.